السلام عليكم اسكسونا قد wanaagsan maanta waxaan ka hadli doonaa buuga lagu magacaabo Why We Sleep maxaan u seexanaa waxa qoray qoraaga caanka ah Matthew Walker PhD oo baradhiga cilmiga barashada neerfaha iyo cilmiga nafsiga wuxuu hore ugu dhigi jiray jaamacadda Harvard cilmiga waalida wuxuu daawacay in ka badan 100 cilmi baariseed maxaynu u seexanaa waa buugiisii ugu horeeyay ee uu qoray qoruhu wuxuu ku bilaabayaa ma u malaynaysaa inaad seexatay hurdo kugu filan isbuucii ugu dambeeyay ma xasuusan kartaa goortii kugu dambeysay ee aad toosay adigoo isticmaalin gambaleelka saacadda adigoo firfircoon una baahnayn kafee haddii jawaabta labadan su'aalood ay tahay maya kaliya ma tihid dadka qaangaarka ah ee adduunka ku nool haddii loo qaybiyo 3 meelood 2 meelood oo ka mid ah way ku guuldareysaan inay helaan 8 saacadood oo hurdo ah si joogto ah hadaad u seexato in ka yar 6 ama 7 saacadood habeen kasta waxay burburisaa habdhiska difaaca jirka in ka badan 2 jeer waxay kor u qaadaa khatarta kansarka markaas ay hurdadaadu yaraato waa markasta oo cimrigaagu gaabto saynisyahanada sida anigoo kale waxaan bilaabnay inaan ku gawaabino dhaqaatiirta inay bukaanku u qoraan hurdo sidoo kale qoraagu wuxuu leeyahay maxaad ku garan kartaa inaad hurdo kugu filan seexatay markaad subaxdii kacdo hurdada miyaa dib ugu noqotaa 10 subaxnimo ama 11 subaxnimo haddii jawaabtu ay tahay haa waxaa laga yaabaa inaadan helin hurdo kugu filan xag tiro ama xag tayaba miyaa si fiican u shaqayn kartaa adigoo isticmaalin bun ama kafee ka hor galabta haddii ay jawaabtu tahay maya waxaa laga yaabaa in xaaladaada hurdo la'aaneed aad la dhibaatoonaysid miyaad is aragtaa adigoo kolba aqriya qoraalkii aad mar hore akhrisay haddana ku celinaya sidoo kale maxaa ku diidayo inaad seexato ayuu leeyahay qoraaga dhowr shay ayaa aad u saameeya hurdada tiro iyo tayaba leydka ama iftiinka joogtada ah heerkulka bunka toosinta qasabka ayuu sheegay intaas sidee ku heli karaa hurdo igu filan qormadan waa mid ka baxsan buuga aan ka soo xigtay meelo kale waxaan ku sheegi doonaa dhowr talaabo oo qaas ay tahay inaad sameyso si aad u hesho hurdo macaan oo aan lahayn caajis sameyso jadwal ku gaar ah sida saacad hebel waa inaan seexdaa habeen kasta seexo 3 saac habeenimo iskuna day inaad kacdo 10 habeenimo ama 10 subaxnimo ha cabin shaah caleent ku badan tahay ama kafee marka aad seexanayso iyo marka aad shaah ama kafee cabayso waa inay u dhaxaysaa 8 saac oo xiriir ah samee socod 1 saac maalin kasta socodku wuxuu macaan u yeelaa hurdada seexo meel qabow kuleelku wuxuu qofku u diidaa inuu macaansado ama ku raaxaysto hurdada ku qabayso biyo diiran inta aadan seexan ka hor biyaha diiran dhiiga ayay furfuraan ha u seexan dhabarka oo loo seexdo caajis dheeraad ah ay qofku u keentaa furo daaqada qabowga macmalka sida mukeefka iyo marwaaxadaha waxa aad ugu wanaagsan hawada dabiiciga seexo qol aad loo hagaajiyay nadaafadu waxay ka mid tahay waxyaabaha macaanka u yeela hurdada ha cabin hana cunin waxyaalaha macaanka ama sokorta ku badan tahay inta aadan seexan 1 saac ka hor jooji isticmaalka dhammaan waxyaabaha sokorta ku badan tahay u seexo midigta dhanka bidix waxa ku yeela wadnaha sida daraadeeda si wadnuhu u helo awood uu dhiigu ku gaarsiiyo meesha uu rabo u seexan dhanka bidix ka fogow shaashadaha waxyaabaha hurdada macaanideeda qaaday waxaa ka mid ah isticmaalka telefoonka sababtoo ah iftiinka shaashaduhu waxay dilaan indhaha guud ahaan gaar ahaan habeenkii sidoo kale aan u soo laabano buuga hurdada iyo waxbarashada cilmi baaris lagu sameeyay in ka badan 5,000 oo arday oo dhigta iskuulada waddanka Japan ayaa lagu ogaaday in carruurtu hesho hurdo badan ay ka natiijo sareeyaan kuwa dhigooda ee aan seexan hurdo ku filan waxa kale oo daraasadu muujisay in carruurtu hurdo badan seexata ay ka garad badan yihiin kana fircoon yihiin kuwa dhigooda ah hurdada iyo daryeelka caafimaadka haddii aad daawo caafimaad u tagto dhakhtarka waxaan kugula talin lahaa inaad dhakhtarka weydiiso intee la eg baad seexata 24 saac ee la soo dhaafay jawaabtu dhakhtarku waxay go'aamin doontaa in daawada uu ku siinayo ay keeni karto caafimaad daro khatar ah amaba dhimasho dhaqaatiirta ama kalkaalsooyinka caafimaad ee shaqeynaya 30 saacadood oo xiriir ah waxay galaan in ka badan 36% qaladaad xagga daawada sida inay qoraan tiro qaldan oo daawo ah
ama inay kaga tagaan agabka qaliinka gudaha bukaanka ay qaliinka u sameynayaan. sidoo kale wuxuu soo qaadanayaa qoraaga dhibaataynta iyo caawinta hurdada kaniini mise tala caafimaad. kaniinida hurdada kuwii hore iyo kuwii dambe waxay keenaan hurdo la'aan soo noqota. marka qofku uu joojiyo daawada waxay ku ridaysaa hurdo la'aan aad iyo aad u xun oo marka qaar ka daran hurdo la'aantii kugu kaliftay inaad kaniini doonato. waxaanay keenaan caabuq, yareynta habdhiska difaaca jirka, kansarka iyo shil. habka ugu fiican ee hurdo la'aanta lagula tacaalin karo waa talo ay dhaqaatiirta adduunka ay ka dhigtaan midda koowaad. hababka ugu cadaad waa in la iska yareeyo kafeega, lagana fogeeyo moobeelada iyo telefishinada qolka hurdada. marka intaa lagu daro bukaanka waa inuu sameeyaa talaabooyinkan soo socda. haddii ay hurdo ku imaan weydo ha sii jiifin, balse shaqooyin kale qabo sida inaad wax akhriso. hurdada casirkii iska ilaali haddii ay kugu keenayso habeenkii hurdo la'aan. ka saar maskaxda fikrada keenaya warwarka iyo walbahaarka ka hor hurdada. qodobka ku cajab geliyay xagga hoose inoogu reeb. intaas ayaan jeclaysay inaan idinla wadaago mahadsanidin.